Assalaamu calaykum maqaayadda sharafta leh kusoo dhawaada channelka Mamos Media fadlan dadka cusub taa channelka subscribe saar like saar share dheh Taiwan waa maamul ama dal aan la aqoonsan isla markaasna doonaya inuu ka go'o Shiinaha boqolkiiba 99 dhulkeedu waa jasiirad badkeeduna waa wax ka badan 36,000 oo kiiloomitir oo square ah waxay dhacdaa bariga Aasiya gaar ahaan koonfurta bari ee dalka Shiinaha tanaad waxay raacsanay dalka Shiinaha ilaa 1859 kadibna waxa qabsaday wadanka Japan markii Japan lagu jabiyay dagaalkii labaad adduunka waxay mar labaad gacanta u gashay tanaad dalka Shiinaha waxayna si toos ah ugu miday ilaa 1949 cid ku dhacda inay aqoonsato ma jirto xitaa Mareykanka ayaan aqoonsanayn sababtuna waa awoodda Shiinaha oo difaacan karta dhulkeeda iyo mabaadi'deeda markii la doortay Trump wuxuu sheegay inuu la hadlay madaxweynaha tanaad isla markaasna waxay ka calaysay dawladda Shiinaha Taiwan waa dalka 12aad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka dalka yar ee aan haysan aqoonsiga ayaa ka dhaqaale badan qaaradda Afrika dalka dhaca tirada dalka ku nool Taiwan waxa lagu sheegaa 24 milyan Taiwan waxay leedahay warshado wax soo saar badan sidoo kale waxay leedahay baasaboor u gaar ah lacag u gaar ah iyo ciidan u gaar ah waxaan la siiyay ciidanka Taiwan tababar aad u adag akhyaarta safta leh aad ku cusubta channelka subscribe saar like saar share dheh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidaas iyo nabadgelyo